Sahal Geed Daawad iyo Siciid Geed Daawad waa laba wiil oo dhalinyaro ah oo ku nool tuulada Ceelcad ee waqooyiga degmada Garada waxay ka mid yihiin dadka barakacayaasha ah ee abaarihii istaba joog ah ee dalka soo maray ay xoolahoodii ka laasteen. waa laba wiil oo curyaana ah waxayna ka fadhiyaan laxaadka waxay ku socdaan calaacalaha iyo ruugaga ma haystaan gaari curyaan ay ku socdaan ma haystaan hanti ku filan oo ay ku baahi baxaan waxay ku nool yihiin nolol aad u hooseysa waxayna ka codsanayaan dadka muxsiniinta meel kasto ay joogaan inay soo caawiyaan waxana hadalladooda soo marayaan tuulada Ceelcad marka gawaadhida waa doonaynaa waxaan codsanaynaa aanu magaalada Ceelcad ka noo codsanaynaa gaariga iyo waxaan doonaynaa waa caydhoobay feel hore waa caydhoobay qadamana uryamaan nahay markii dabena waa sida waxa weeye waxaan doonaynaa gaariyo iyo ma doonaan uryaabaasan nahay sida u fadhiya aragtaa baydinkuba Soomaaliland arko madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu naga caawiyo oo gaawada ku socono iyo kuwan ku hadaafno iyo waxa iyo biro nagu caawiyo aanu dhisano iyo qalo roobku cid naga hela abaartuna soo galay wax hooyna marihiin waxbarashada doonaynaa inuu caawiyo oo si degdeg noo caawiyo oo noo yimaado walaalana ninkan walaalanahay waxaan ka keenay waxaan ku soconaa calaacala ayaa ku soo galay magaalada oo biyo iyo baad iyo waxaan cuno iyo cafaac humano iyo wana soo gaaro assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh doodii kamid ahaa Faraxa Cabdi Nuur Honkeyval TV Garada.